inkastoo deegaamo badan oo ka tirsan gobolka Saraar ay roobabkii gugu si fiican u heleen bilihii u dambeeyay haddana waxaa gobolka Saraar ka jira deegaamo badan oo aan ilaa hadda ku tiixin raxmaadka Eebe deegaamadaas oo si weyn looga soo sheegayo qayladhaan ba'an oo dhinaca biyo la'aanta ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Ulasan oo ka tirsan gobolka Saraar maayirka degmada wadaamagoo Cabdirashiid Axmed Iidle Baradho ayaa waxa uu deegaankaasi Ulasan u gaadhsiiyey booyada biyo kuwaas oo wax ka tari doona baahidii dhanka biyo la'aanta ka jirtay deegaankaasi waana kan ugu horeynba maayir Cabdirashiid Axmed Iidle Baradho oo ka waramaya deeqdan biyaha ee maanta uu la soo gaadhay deegaanka Ulasan iyadoo ay jirto xaalad abaareed maadaama roobabkii faraha badnaa ee dalka ka da'ay aanay deegaanka Ulasan iyo nawaaxigeeda helin maadaama waxay ku qaylinayeen waxyaabo badan oo qaylo badan in badan ay soo qaylinayeen waxaanu yara awoodnay ka dawlad hoose ahaan inaanu laba booyadood oo biyo oo dhiig joojin ma aha wax taraya waad aragtaan waxaanu baaq u diraynaa dawladda dhexe hay'adaha deeq-bixiyeyaasha gurba-joogga deegaankan iyo qolqol-joog iyo ganacsato dhammaantoodba inay ka qayb qaataan ololaha ballaadhan ama baahida ballaadhan ee ka jirta deegaanka Ulasameed oo ay ugu badan tahay waxyaabaha asaasiga caafimaadka iyo biyaha oo imika priority-ga koobaad Ulasan ma aha ceelkii laasna haddii aan soo marin biyo in dhaweyd biyo ma marin waana deegaan laga kala guuray oo waxa ku hadhay dhalinyaradii wax baranaysay iyo maatadii sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka Ulasan ayaa maayirka degmada wadaamagoo uga mahadnaqay deeqdan biyaha ah ee uu la soo gaaray waqti bay dhaheen ay bulshada deegaanka Ulasan ay baahi weyn u qabtay dhinaca biyaha maxay ay tahay maanta waxaan oo yimid laba booyadood oo biyaha waa maayirka wadaamagoo Cabdirashiid Axmed Iidle kuna mahadsan yahay maxay ay tahay biyaha maanta noo keenay haraad baan qabnoonahayay waxaan u baahanahay in loo soo kordhiyo mashaakilka noogu daran imika noogu daran horta wax weeyaan biyo la'aan iyo abaar idinkana waa idin ducaynaynaa khayr baan idin rajaynaynaa maayirka iyo waftigiisa uu hogaaminaya ee noo timi ee biyaha noo keentay mahad baan u celinaynaa waa maayirkii wadaamagoo baahiba biyood baa imika noogu daran maanta maayirka noo keenay iyo waftigiisa la socotay reer wadaamagoo aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa beegantay maayirkii wadaamagoo Cabdirashiid Axmed Iidle horta waxaad u soo beegantay maalin aad iyo aad mucjiso ah Ulasan haddaanu nahay dee qayb ilaahay baanu fariin u diranaynaa oo ilaahay soo waraabiyo khayr nasiib aanu leenahay jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba